واحد شرتا الأستاذ سيد قطب رحمه الله أي سؤال ويديه وحكوا أن سيد قطب gabadha muslimadii baarlamaanka ma geli kartaa wuxuu ku yidhi waxaan rabaa intaan tan ka jawaabin inaynu helno mujtamac muslima iyo gabadh muslimada dabeetana aan eegno baliyadu inay baarlamaanka soo doonato markaasaynu ka jawaabaynaa buu leeyahay xaq mawlaada mise uma lihid laakiin meel aan haynin baa buu leeyahay mujtamacii muslimka ahaa iyo ummadii yani hadday ummaddu muslim noqoto hagaagto qof waliba dowrkiisa uu garanayaa buu leeyahay wixii ilaahay wuxuu jideeyayna wuu garanayaa marka waa su'aal aan waqtigeedii joogin buu tilmaamaya cumuuman gabadha muslimadda ah manaasib badan oo loo ogol yahay iska jirta waxna waa wax loo door bidayo waxna waa waxay mubaax u tahay مثلا guriga waxay dadku ka fakaraan dheriga karintiisa markay guriga maqlaan war gurigu nooca ma aha aqliyadiina aad bay u liidataa gurigu waa mu'assasad dhan oo kamida mu'assasaadka ummadda muslimka ay leedahay jiritaanka dadku ummadda la sheegaya waa guriga isu tagay gurigu siduu yahay un baanay ummaddu tay gurigu hadduu wada dictator la iskaga dhaqmo xaakimka sarena waa dictator ay ummaddu de mu'assasaadkeeda ba nooca u dhisan gurigu meel la isku dulmiyo hadduu yahay xaakimka sare iyo siyaasadda sarena waa meel la isku dulmiyo ummaddu gurigay ka dhisantaa ilmahan caruura iyo tarbiyadiisu waa waxa ugu weyn waayo waa mustaqbalkay ummaddu lahayd ilmaha caruura maanta أحد العلماء المعروفين وألكسيس كارل في كتاب إحدى الكتب والسلوك الدقق أو كجورما ألكسيس كارل ونرر قلبات و30 سنة روكفيلر ريسيرش كاها باحث ناتو دقال الذي لواد الدنيا دوها لطليا دكتور كيوجوي نوبل برايس قاطين 1902 ألف كي يعني أفراد فرط الوقوف في قد الدنيا من كم يدبوها أيوه قريبوك markaasuu wuxuu ku tilmaamayaa ilmaha iyo kobcintiisa markaasuu wuxuu yidhi tusaale soo qaadaya marka wuxuu yidhi ilmaha xadaanatul atfaalka lagu kobciyo ilmahan inta la isu soo ururiyo kindergartenka baana haagaa la keeno ee halka lagu kobciyo iyo ilmaha guriga lagu tareengareeyo buu isbarbar dhigaya markaasuu wuxuu yidhi labadaa difference-ka u dhaxeeya waa caalim dunidu uga dambaysa cilmigiisa labadaa difference-ka u dhaxeeya waxay la mid tahay buu yidhi tajriba la sameeyey buu yidhi ay lagu sameeyey ayda meesha lagu kobciye lagu tababaro ee intay dhalaan dabeetana carruurtooda la ururiyo dabeetana nin training yaqaano tababari uu tababaro iyo ayda waalidkaa buu yidhi ay waliba uu hooyadeed ka yari uu iska dabagalo waxa intelligence-kiisu horkobci ogyahay buu leeyahay oo training-ka hor qaadan og oo fahmadiisa iyo fiicnaantiisu badan tahay kan hooyadii iska daba socda waaye buu leeyahay qof weyn oo wax kaga daydo example-ka ka qaataa meesha uu jooga buu leeyahay sida daraaddeed kan baa qumanaan badan buu leeyahay kii mutakhasiska loo dhiibay ee boqolka yar ee ama 10ka ay isku hayay train garanayay kaas baa ka hor fahmay og buu leeyahay waayo qudwa buu helayaa buu leeyahay ku daydo gurigu waa qadiyad khatar ah mustaqbalka dadka iyo soo saarkooda waa qadaaya khatar ah gabadhu iyo mujtamaca qayb ka mid ay wadaa لكن شقين بدنه كله له أقول يا شرا هداي ظروفي كانته يعني بعض العلماء وحي تلماما حتى الضمر كي مسلمين تهرى قار كم يدي عهدي عمر بن الخطاب إن هايان محي آمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما الأمر بالمعروف إن مدحك هيدا كله بعض العلماء وحي قبان من أزيش ابن حزم يسوي ده الرأي يد فقبو قباوحي الإمامة العظمى قصك يسبوا قبان كرتابو قبا قار كلا وحي قبان ما لها إمامة العظمى قاضية هي كاسي يقوى مويانة عماشة كالوردن لكن شروطون بيكو حرنتي شروطه كله waxaan uga jeedaa markaas ikhwati meel dad lagu loolansiinayo gabadh iyo nin la isdhina ciriya meeshan ma taale meel baa jirta dad muslimiin iyo guri muslim iyo ummad muslima la dhisayo gabadha muslimkii dadka muslimiinta wax badan bay u qaban kartaa ahdigii nabiga dagaalka ka qayb galeen dagaal caadi ah iyo mid badeed bay ka qayb galeen bal nabigu intuu hurdo ka toosay ayuu yiri waylun lil arab waylun lil arab waylun lil arab wuxuu sheegay nabigu kaleey salaatu wasalaam carabta in balaaya qabsan doonto dabeetana qadaayadkii markuu nabigu wadwaday wuxuu tilmaamay inay ummadda muslimiinta ka mid noqon doonaan qaar maxay badda ka jihaadi doona haweeney ag fadhiday muxaraam oo gurigeeda jooga ag fadhiday ayaa tiri ilaahay rasuulkiisa igu duceeyna kuwa ka mid noqdo
ustul bahriga ina raacaba ileedo ka dagaal galo ilaahay rasuulkiisa kuwa igu ducee anta minhum bu nabigu ku yiri qobros bay ku geeriyootay wa saxaabiyad waxay nabiga weydiisanaysaa ustul bahriga ina raacdo amiirul muuminiin baa guursaday dabeetana ciidankii bay raacday deetana xagga iyadoo jihaad lagu socdo ayuu axadu saxaaba yidhi yaa rasuulallahi bal mutalxa eeg halkay maraysaayo toorre yar bay hoosta ku sidataa buu yidhi jihaad baa lagu socdaa markaasuu nebigu intuu qoslay buu yidhi maxaad ku falaysaa gaal baan silay bay tihi halkaa kaga jeex jihaad baa loo socdaa midideeda iyana sidataa waxay leedahay waxaan isleeyahay mid gaala hadduu kuu soo dhawaado aad halka kaga jeexdid umma bay ahaayeen dadka ka mid a laakiin sidan laysu hoos eriyayo maaha iyo sidan loo loolonsiinayo ninku kan hadduu qabto gabadhu kan ma qaban kartaada maaha kaasi waa mid sida dadka badhay meel yaroo fog la rabaanna ma aha caqliyadda idinku wax ku qiyaasaysaana waa caqliyadda halkan taale mujtamacan loolamayo waxa kan ma qaban kartaa kan ma qaban kartaa war suuraddanba wuu ka gedisay mujtamaca muslimka ee awalan keena suuraddii mujtamaca muslimka uu lahaa dabeetana eega dumarku waxay qabtaan iyo raggu waxay qabtaan cidina isma qabsan jirin cid walibana xuquuqdeeda way haysatay wallahu aclam